subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. xilliyada kamid ah waxa tuulo yar oo lagu magacaabi jiray Mumbai ku noolaa wiil gabar isjecel oo lagu kala magacaabi jiray Mukesh iyo Sonal labadoodu aad ay isku jeclaayeen. Mukesh iyo Sonal toddobaad kasta waxay ku kulmi jireen meel ka fog tuulada sababtoo ah tuulada dhexdeeda lama aqbali karin saaxiibtinimada wiil iyo gabar haddii la arko wax ka dhalin jirtay ceeb iyo hadal xumo. Sonal mar walba Mukesh waxay kula kulmi jirtay tuulada banaankeeda. maalmaha kamid ah Sonal iyo Tuki ayay waxay aadeen meel ka fog tuulada. Gacali iyo Mukesh maalin dheer halka kuma imaan karo saan u iimaanay cagii ayaa daalay arinta qarsoorsidii aan ma sii socon karno ee u sheeg waalidkii inaad ii rabto igana soo doono anu war dhan ma rabe. Gacali soo iga xanaaq wax yar ayaa dhibin dulqaado aniga ayaa waalidkii ka dhaadhicinaya in adiga ku rabo sidoo kalena waalidkaaga adigu ka soo dhaadhici inaad aniga rabto. Hay Gacali balaankaadan la xaaladda guurkeena adigu ma ku qorsheyntaa inaad waalidkii iga soo doonato mise waxa rabtaa inaan ilaa iga tagdo. Naheed adigu ma waalan tahay intaas oo dhan maxaan dibadda kula wareegaya haddaan ku rabin oo aanan mustaqbalka lahayn. Waxaan rabaa inaan noqoto ilmahayga hooyadood, waxaan rabaa inaan noqoto gabar fiican oo ilmahayga tarbiyeysa. Marka hadda waa gabalkii intaad guriga aadid hooyada iyo aabaha waxa ka soo dhaadhicisa in aniga lagu ka daro oo la ka siiyo layna diidin haddii kale meesha balaaya ka bilaabanayso hamigayga dhan meesha ku burburaya adna hamigayga sidoo kale meesha ku burburaya. aniguna hadda waxaan aadayaa xaafadeydii waxaana waalidkii u sheegayaa wax kasta oo meesha ka dhacay. waxaana ku dhahayaa waalid waxaan rabaa inaan arooso gabar, waxaana rabaa inaan keeno xaafadda ee ma igu raacsatay gabadhaasna aan lay doono ayaan dhahayaa. Dhibal ka gaaray xaafadii oo waalidkii u sheegay inaan anigu dhiso doono rabo. Hay Gacali riyadeeduna way rumeebi doontaa waxaan arki doontaa labadeena oo ilmo isku dhalnay agga dhinaca ka fadhida ana dhinaca ka fadhiyo oo qasqas leeyahay bal noloshaas war Gacali waa nolol wanaagsan waxaana Ilaahay ka rajeynaa inuu noloshaas gaarsiiyo ee hadda orod tag oo waalidkii u tag kana dhaadhici wax kasta oo warbixina. Mukesh mootadiisii ayuu Sonal ka soo qaaday waxayna soo aaday dhanka tuulada iyadoo qarsoodo u soo tagay. Mukesh markuu guriga gaaray wuxuu la hadlay waalidkiis. Hooyay aabba waxaan ii wadaa caawa arrin aad u weyn waxaan rabaa inaad iga caawisaan sidii loo geli lahaa. Oo Maando maxay tahay arrintaad aad sheegaysaa caawa balaayaa waa noo keentay bal noo sheeg waxaad noo sheegaysaa Maando. Aabba waxaan jeclaa gabar tagan tuulada waxaan rabaa inaad ii guulisaan gabadhan wax u qaada jacayl had dhaaf ah oo aan la soo koobi karin iyadana waxay ii qaaday jacayl had dhaaf oo aan la soo koobi karin. Marka aabba waxaan rabaa inaad gabadha igu tadid si wanaagsan aad reerkooda iga doontid. labadii waalid markay maqleen go'aanka wiilkooda aad ayay maadaama ay mamnuuc ahayd in wiil jooga tuulada uu guursado gabar kale oo joogta tuulada. Maando maalmahan waa lagu hayaa oo waad soo waalan rabtaa ma waxaad rabtaa gabar tuulada ka tirsan in adiga tuulada jooga ku gooriyo. waad ogtahay dhaqanka iyo xeerka noo yaala in gabar ka mid ah tuulada aan la guursan karin. Maando ma waxaad rabtaa inaad sharafteeda iyo cirdigeyga meel uga dhacdid yaan ku habaari wiilkayga oo iga fariiso gabadhaasna ma doonayaan. wiilkaygiiyo aabaha hadalka maqal hana ka diidin dhacul xun oo sharaf bartayna aabaha amarkiisa u diidin aabahana sharafta ka qaadin oo tuulada dhan yeeso ka noqon qofta kooran. waan ku duceynaynaa wiilkaygiiyo gabadha ka samir oo gabar kale tuulooyinka kala raadso waan ku duceynaynaa haddii kale hadaad doonito ku habaarayna anagu. hooyo may gabadhaas waa gabar aad ii jecel oo aan muddo badan soo wada sheekaysanay xiriir jecel oo dheer uu naga dhaxeeyo. midda kale waa gabar danta iyo duruufuhu naga dhaxeeyaan oo wax kasta iga dulqaadanaysay. marka aabe iyo hooyo ma rabo gabadhaas inaan ka tago waxaana rabaa inaad gabadhaas ii doontaan. haddii aan gabar guursanay gabadhaas ayaan guursanaya haddii kalena weligay guursan maayo oo wax noqonaya duub weynaaday. aabba waxay daneen igu jidhaa in wiilkeenu qalbi jab dareemo gabadhaas yartaana aad bilaa mustaqbal ka dhigdaan oo nin aysan rabin lagu qasbo anigana lagu qasbo gaban aan rabin. aabba anigoo hadalkaygu waa cad yahay gabadhaas ayaan rabaa haddii ay igu darasaan igu daro oo ii doona haddii kalena iska daaya oo waxaa noqonaya doob aad u weyn. kadibna wiilkii ayaa iska baxay isagoo aad u xanaaqsan wuxuuna aaday dhanka qolkiisa isagoo raba inuu jiibsado. xaaji wiilka markan waa ka dara waxyaabo waaliya oo annaga sharafteena iyo wejigeena xumaan u taraysa ayuu soo baalkeenay oo hoos u dhigaysa. wiilkaa meel la hadashay adaa dhale hadda maxaa xaalo ii haysaa marka aniga wejigayga waa gubanaya hadduu idhow gabadhaas ii doon marnaba rabo gabar kale inaa guursada ee maxaa xaalo aan sameynaa bandhiro tiri adaa tala maanta ku bidee maxaa ku talinaysa adigu haddii ay qorshaan ku hor ooli lahaa maxaad dhihi leed adigu. xaaji istaji horta waxaan kugula talinaha aniga talada haddaa qaadanaysid duqa magaalada waa inaan u tagnaa kadibna aan ka dhaadhicina arrinkan bal wuxuuna yidhaahdo aan aragno hadduu yidhaahdo waa aqbalaynaa iyo haddii kale waa arkaynaa bal aan beri aan u tagno. subaxdii markii la gaaray wiilkii gabadha jeclaa iyo labadiisa waalid ayaa waxay soo aadeen dhankii duqa magaalada. gudoomiye waan ku salaamay sidee tahay xaaladda ka waran waxaan rabnaa inaan arrin degdega kuu sheegno waqti ma noo helaysaa. haa waad ii sheegi kadhaan maxaa dhacay anuu hadda firaaqaayaan ahay waqti fiican oo igu dhegaysta waan hay bal waxaad haysaan soo daaya hadduu kheyr yahay. wiilkeena aan dhalna ayaa wuxuu jeclaaday gabar ka mid ah gabdhaha degan tuulada wuxuuna rabaa in loo guuriyo ee adigu maxaad ka leedahay arrintaas. gabaray miyaad waalan tahay xeerkii noo yaala ee ahaa in wiil ka mid ah wiilasha degan
magaalada uusan guursan gelin gabar ka mid a gabdhaha tuulada. Heerkaas miyaad hilmaamteen? Aniga miyaa rabtaa wejiga inaad ceeb ku furtaan? Gudoomiyihii ugu horreeyay ee waxa sameeyay miyaa rabtaa in aniga iga dhigdaan? Sidee u hadlaysaan adeerayaal qiiladan iyo buuqan iyo daradan inta igala tagdaan meelaha la aado tuulooyinka kale la aado haddana waxaa rabaa inaan idin xiro. Tallaabo sharci ah ayaan iga qaadayaa.